السلام عليكم. موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay shimbiraha. qaybo kamid ah shimbiraha waxay nagu leeyihiin saameyn wanaagsan. qaybo kamid ah shimbiraha way ciyaaraan si ay noo kiciyaan salaadaheena, halka qaybo kamid ah aan daawano quruxdooda si aan u halmaamno problemo jiray, halka qaybtood kalena aan cunno si aan isaga baahitirno. laakiin meelo badan oo dunida ku xeeran waxaa ku nool shimbiraha halis badan, xawaarahoodu saad yahay, caqligooduna badan yahay. muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa shimbiraha ugu halista badan dunida. gumayska miisaankiisu wuxuu ka badan yahay 1 kilogram, baalashiisuna waxay dhirir ahaan ka dhaadheeyihiin 1 mitir. gumayska wuxuu weeraray wiil yar sida muuqaalka uga jeedaan, sidoo kale wuxuu wajiga ka fiiqday ninkan kale. muuqaalkan kuma soo koobi karno dhammaan waxyaalihii uu geystay dadka gumayska, balse shimbirkan wuxuu wax ku ugaarsadaa afka, baalaha oo wax ku dharbaaxo. sidoo kale wuxuu isticmaalaa cidiyaha farihiisa, kuwaasoo leh xoog saa'id ah ay wax ku qabsadaan oo la mid ah sida qaninyada eyga waaweyn oo kale. gorgorka waa shimbir weyn oo dilaa ah oo dunida oo dhan ayuu ku faafay. gorgorka waaweyn wuxuu awoodaa inuu ugaarsado xoolaha sida ariga iyo xitaa dadka kuwooda yaryar. sidoo kale gorgorka wuxuu doonayaa inuu ugaarsado wiil yar oo u qaato. gorgorka wuxuu ka mid yahay shimbiraha ugu halista badan ee dunida. emu shimbirkan ma hayno magaciisa saxda ee af Soomaaliga. haddii aad hayso inagu caawi. ma ahan goronyo, waa shimbirka ugu horeeya ee aan kuu sheegi doono maanta ee aanan duulin. emu waa shimbirka labaad ee ugu dheer shimbiraha dunida. dhirirkiisu wuxuu gaarayaa 6 feet ama 1.8 mitir. lugaheeda dhaadheer ayaa waxay ogolaanayaan inay dhaqaaqdo xawaare dhan 50 kilomitir saacadiiba. awoodda lugaheeduna waxay ka caawin kartaa inay isdifaacdo waxna ku ugaarsato. goronyada waxay u yar eg tahay shimbirka emuga la yiraahdo. waxay leedahay lugo dhaadheer iyo sur dheer sidoo kale. shimbirkan dhirirkiisu waa 9 feet ama 2.7 mitir. culeyskiisu waa 136 kilogram. sida darteed goronyadu waa halis suurtagal ah inay wax walba dhaawacdo. goronyadu waxay leedahay lugo dhaadheer misan xoog badan, xawaaraheeduna waa 70 kilomitir saacadiiba. labadeeda lugood waxay leeyihiin awood dili karta libaaxa iyo dadka. dhibanaha ugu caansan ee goronyada wax gaarsiisa ayaa ahaa halyaagii muusiga dalka Mareykanka, kaasoo xanaaneyn jiray. goronyadaas maalin ayay soo weerartay, calooshana ka haraantisay. gorgorka crown la yiraahdo. gorgorkan wuxuu ka duwan yahay kii hore. gorgorkan waxaa lagu magacaabaa inuu yahay shabeelka hawada, badanaa wuxuu ku nool yahay qaaradan Afrika. wuxuu ugaarsadaa naasleyda sida deerada, bakaylaha iyo daanyeerka kiisa yaryar. kaaswari ma hayno luqadda saxda ah af Soomaaliga lagu dhaho. haddii ay haysan nagu caawi. shimbirkan ayaa waxaa laga helaa kaymaha kuleelaha ee New Guinea, jasiiradda Maluku iyo waqooyi bari Australia. shimbirkan ayaa ah kan labaad ee ugu culus adduunka, wuxuuna dhaqaaqaa xawaare dhan 50 kilomitir saacadii. wuxuu wax ku weeraraa lugihiisa, halka cidiyaha farihiisuna ay gaarayaan 10 sentimitir. wuxuu dilay ninkan oo la oran jiray Marvin Hedges oo ah 70 jir isagoo xanaaneyn jiray. wararku waxay sheegayaan in ku dhawaaday gurigiisa lana qaaday isbitaalka ugu dhawaa. ugu dambeyn halkaas uu ku dhintay. muuqaalkeeni maanta intaas ayuu nagu ogyahay. channelka aad daawanaysiin waa Burqad Channel. soo jeediya barnaamijkana waa anigoo Cabdinaasir Cilmi Cabdi. haddii taad markii ugu horeysay aad soo booqato channelkan, fadlan taabo calaamada subscribe-ta si aysan ku dhaafin muuqaalada ka soo burqanaya channelka Burqad. haddii muuqaalkan ka heshay like saar, lana wadaag asxaabtaada. mahadsanid.